بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسر دوادا حلقة اللباد أما عشر كي اللباد كساب سنة تاريخ شيخي وينا الشيخ عبد القادر الجيلاني وحان كسر شاكيني هل عشر أما هل حلقة أو هردع عشر كي اللباد أما حلقة اللباد أيان قلينا waxaan xalqadan uga hadli doonaa sheekh jiilaani magaciisa saxda ah abtiriskiisu cidda uu galo waqtigii uu dhashay meeshii uu ku dhashay qaabkii uu u soo koray markii uu magaaladii uu ku dhashay ka tagay ee cilmi barashada aaday iyo haddii waqtigu noo saamaxo samirkii iyo dulqaadkii ilaahay uu siiyey ee uu ugu adkaystay dhibaatadii ka soo wajahday waxbarashada xilligeedii sheekh jiilaani magaciisa haddii aan ku hormarno waxaa culummada taariikhda kutubta ah kaga hadleen ay soo qaadanayaan sida xaafidu dahabi kitaabkiisa siyar aclaami nubala iyo a'imo badan ee culummada waa ugu waaweyn taariikhda dadka ka hadla wuxuu leeyahay sheekh jiilaani asheekhu limaam waa sheekhii imaamka ahaa hogaamiyaha ahaa xilligiisii alcaalimu zaahid waa sheekhii aqoonta badnaa haddana zaahidka ahaa ee aan ahayn dadka adduunyada ku tartama alcaarifu lqudwa haddana aqoonta ilaahay siiyey ilaahay yaqaanay dadkii mukhlisiinta ahaa dadkii haddana hogaamiyaha yeesha ka mid ahaa oo lagu daysanayay oo dadka culummadaho lagu daysada ka mid ahaa shaykhulislaam muslimiinta sheekhoodii ahaa calamul awliyaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ee saalixiinta ah ee awliyada ah kuwii yacni sheekhii markaas ugu caansanay oo ugu muuqday ahaa muxyidiini abuu muxamed ee loo yaqaanay muxyidiin diinka kii noolaynayay abuu muxamedna loo yaqaanay muxyidiin waa laqab naynaas abuu muxamedna kunya leeraa laakiin labaduba carabiga naynaasay soo galayaan soomaaligeena cabdulqaadir binu abi saalix cabdilaahi ibni janki dawst uu leeyahay waxaa magaciisa sheikha caadiga ahaa cabdulqaadir aabihiisna muusa la dhihi jiray waxaana lagu kunyo jiray ama lagu naynaasi jiray abi saalix sheikha marka waa sheikh cabdulqaadir binu muusa ama sheikh cabdulqaadir abi saalix haddii leerana abi saalix waa isla aabihiis sheekha marka sheekhaas ayuu ahaa magaciisu sidaas ah abtiriskiisa sheikha kutubta taariikhda intooda badan waa ay sheegeen wuxuu gelayaa xagga aabihiis haddii loo abtiriyo sayid cali binu abi aalib asagoo maraya sayid xasan oo wiilkii faadumo rasuul ay dhashay ah xagga abtiriska hooyadiis haddii la qaadana wuxuu gelayaa isla sayid cali binu abi aalib asagoo maraya sayid xusein marka xasan iyo xusein labadiisa awowo oo aabihiis iyo hooyadiis kala gelayaan ah aabihiis waa muusa aan abi saalixna aan niri xagga hooyadiisna waxa weeye waa sheegnay waxaana leeraa hooyadiis umulkhayra lagu kunyo jiray waxaana leeraahdaa faatima bintu cabdilaahi asawmici cabdulaahi asawmici awowgiisu ahaa marka gabadhaas faatima leeraahdo oo umulkhayrna lagu kunyo jiray amatul jabbaarna la dhihi jiray allaha jabbaarka ah addoontiisii ayaa hooyadiis ahaad marka sheekh jiilaani abtiriskiisu dhinac kastaba xagga hooyaha leeraahdo xagga aabbaha leeraahda sayid cali binu abi aalib ayuu u abtirsadaa goormuu dhashay sheekh jiilaani xaggeesa ku dhashay sheekh jiilaani wuxuu dhashay sida kutubta taariikhda ay caddaynayaan bisha rabiicul awal ama maaragtay maalmadoono loo yaqaano 11 markii ay ahayd sanadii 470 hijrada markay ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam 470 ayuu dhashay oo markaas taariikhda kalena ku aadan 1077 miilaadiga ku aadan sida xooga badan saas weeye laakiin waxaa kaloo la yidhaahdaa 471diina waa uu dhasho hal sana ku kala bedelan yihiin meesha uu ku dhashay sheikhu waa magaalada la yidhaahdo jiilaan oo yacni hadda dhulkan iiraan ku taalo yacni culummadu kutubta marka ka hadlayaan ay yidhaahdaan waa tabaristan ayay ka tirsanta marka meeshaasuu sheikhu ku dhashay waqtigaasuuna dhashay haddaba sheekh jiilaani qaabkuu ku soo koray qaabkuu ku soo barbaaray
sheekh jilaani wuxuu markii hore ka dhashay qoys wanaagsan oo ahludiin ah ee usro saalixa ah. aabihiis abu saalix muusena magaciisa caadiga ah wuxuu ahaa nin lagu yaqaanay zuhdi iyo dadka ilaahay ka cabsada mutaqiinta ah ee zaahidiinta ah ayuu ahaa. nin oo taskiyatu nafsi ku caanbaxa ayuu ahaa. laakiin sheikha aabihiis isagoo yar ayuu dhintay. hooyadiisna sidoo kale waxay ahayd zawjo saalixa ah oo hooyo saalixa ah oo wanaagsan oo ayana dad wanaagsan oo aimo ah kasoo jeeda. sheekh jilaani maadaama aabihiis uu dhintay isagoo yar agoonnimad ayuu kusoo koray. awowgiis oo hooyo dhalay oo cabdulaahi asawmaci oo asna nin imaam oo weyn oo dadkii ahlu taqwada ahaa ka mid ahaa ayaa soo barbaariyay sheikha. marka sheikhu maadaama uu ka dhashay qoys ahludiina oo wanaagsan, intii uu yaraa diinta meeshaas uu jooga ayuu wax ka bilaabay oo waxna ka qaatay, laakiin kama helin wixii uu rabo o dhan. magaaladaas cilmigii uu rabay inuu barto oo dhan kama helin. sidaa darteed ayuu sheekh jilaani wuxuu doonay inuu tago oo uu meel kale aado, oo gaar ahaan uu aado baqdaad oo xilligaas ahayd caasimadii islaamka, haddana culummadii islaamka ugu waaweynaayo o dhan ay markaas wada joogeen oo diinta waqtigaas meesha xarumihii ugu waaweynaa ee laga barta ka mid ahayd. goormuu marka sheekh jilaani uu baqdaad aaday? wuxuu sheikhu baqdaad aaday oo uu kasoo tegay magaaladii jilaan uu ku dhashay taariikhdu markii ay ahayd 488 hijriyada nabiga markayd calayhi salaatu wasalaam, asagoo jira 18 sano. maadaama uu dhashay 470kii ayuu jilaan kasoo tegay isagoo 18 jir ah, uuna soo aaday baqdaad si uu wax usoo barto. marka sheikhu aad ayuu waxbarashada u jeclaa. markii intii uu yaraay o dhan qoys wanaagsan oo ahludiinana waa ka dhashay. hooyadiis ayuu wax badan wuxuu ka codsaday in uu aado meel uu cilmiga kasii kororsado oo aqoonta kasii kororsado, gaar ahaan baqdaad. hooyadiis waa ay ka ogolaatay markaas, isagoo diintana bilowgeeda ay u dhisan yihiin ayay u ogolaatay inuu aado baqdaad. sheekh jilaani markii uu doonay inuu u safro ciraaq ee uu yani baqdaad soo aado si uu wax uga barto, ayaa hooyadiis waxay soo siiday lacag 40 dinaara ayaa leedaha sida kutubta taariikhda ku qoran. faraqa ayay ugu soo xirta maradii meel ugu qarisay, maadaama boorsooyin iyo meelo wax lagu qarsada aysan markaas dadku wadaan. wayna la soo dardaarantay, waxay tiri wiilkaygow been ha sheegin. hooyada fiican sida lagu yaqaano ilmaheeda ay tarbiyada wanaagsan u tarbiyeyso ayaa waxay ku tiri yaa bunay iyaaka an takdib, wiilkaygow iska ilaali inaad been sheegtid, maxaa yeelay qofka muuminka ma been sheego. yaa bunay kun saadiqan abadan kamaa rabbaytuk, wiilkaygow weligaa waxa weeye run sheeg sidii aan kuu soo koriyey. haadaa huwa amalii fiika, sidaas wey sida aan kaa rajaynaya. marka dardaarankaasay soo siiday inuu been iska ilaaliyo, runta uu sheego, maxaa yeeley ilaahay subxaanahu watacaala qofka runlowgana waa jecel yahay, qofka beenta sheegana waa jecel yahay. haddaba sheekh jilaani waxaa leedaha safarkii markii uu soo galay oo kolonyo safarey ah ee markaas halkaa ka soo baxday ee baqdaad usoo socotay magaaladii caasimadda islaamka aheyd uu soo raacay, ayaa dhacdo dhex ku qabsatay, qiso ayaa dhex ku qabsatay. qisadaas waxay dadkii safareyda ahaa ayaa tuugo wadada u gashay. dadkii tuugada ahaa ayaa safarkii hantidii ka dhacay wixii qaadmayey waana baareen. sheekh jilaani wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo 18 jir ah, ee hadda hanti iyo lacag iyo qarash aysan ka muuqan oo yaroo miskiina halkaasoo kale iska istaagay. markii dadkii wixii ay qaadan kareen ay ka qaateen, ayaa nin tuugadii ka mid ah ayuu sheekh jilaani u yimid oo yidhi waryahaye adiga maxaad wax miyaa haysataa? markaasuu yidhi haa. markaasuu yidhi maxaad haysataa? markaasuu yidhi 40 dinaar. waa yaaba, su-aashii ku celiyey, war maxaad haysataa 40 dinaar? markaasuu soo bixi yidhi waa soo bixiyey. markuu soo bixi wuxuu ku yidhi maxaa kugu kalifa adigoo qarso karay inaad sheegtid lacagtan? markaas ayuu wuxuu ku yidhi aniga waalidkaygii hooyaday ayaa ila soo dardaarantay oo tiri been ha sheegin, marka beenta ayaan iska ilaalinayay, inaan been sheego ayaan diidayay. markaas ayaa ninkii ilaahay qalbigiisa wuxuu ku soo riday cunugan yarka ah ee wadada socdaahi wuxuu ilaalinayaa ballantii waalidkiis oo uu u soo dardaarmay inuusan been sheegin. adinkana ummadii ilaahay ayaad wadada ku dhacaysaan oo hantidooda qaadanaysaan. ilaahay ballantiisii
ayaad maaragtay yacni ilaali weydeen. markaas ayaa meeshii dadkii tuugadii iyo waxa weeye wixii oo dhan ay ku toobad keenanoo ay yacni hogaamiyahoodiya ictiraafo ilaahay qalbigiisa wuxuu ku riday in uu cunug yari uu ilaaliyo ballantii hooyadiis waxa weeye ayaguna ay ballantii ilaahay ilaali waayeen. marka meeshaas qisadaas waxaan ka qaadanayna waxa weeye haddii aad yacni ilaahay ka cabsatid, qofka mar kasta oo ilaahay uu ka cabsado dadka kale ayaa ku saamooba. maxaa yeele islaamka akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ayaa qofka ka sareeya oo ka awood badan wax kas hadalkaaga. maxaa yeele akhlaaqdaadu hadday xun tahay, dhaqankaaga hadduu xun yahay, been haddaa sheegaysid, balwad haddaa leedahay, dadkii caynaysid, cid kugu saamoobaysa ma jirto. islaamnimadkaaga waxaa laleeyahy waa islaam oo maaragtay la iska bedeli karo. laakiin haddii aad tahay qof shantiisa farad tukanaya, ilaahay ka cabsanaya, been aan sheegayn, aan khayaanin, aan balwad lahayn, aan xumaan lahayn, dadku way arkayaan islaamkaaga dhaqankiisa wanaagiisa. xataa dadka gaaladaha ku yaqaana, dadka aan gaalada ahayn muslimiinta oo dhaqankooda fiicnayn, markay ku arkaan qofkaas wanaagsan inaad tahay waa kugu daysanaya, waa kugu saamoobayaan. marka maantay marka u fiirso sheekh jilaani asagoo inan yar uu ballantii waalidkiis ilaalinaya. marka dhalinyarada maanta da'diisa ah ee 18 jirada ah, qaar badan oo ka mid a siday waalidkooda ula dhaqmaan waa wax ku dayasho mudan. ma beenaan u sheegnaa? qayb ka mid waxa laga 12 saac inay been sheegayaan, ay waalidkii been ku qancinayaan, saaxiibo xunna ay la saaxiib yihiin oo waxa weeye kaliya lugooyadooda ka shaqaynaya, waalidkooda horumarkooda jecelna ay mar kastaba been u sheegayaan. marka iska ilaalino, waa dhacdo fiican oo ay tahay inaan kaga daysano. qisadaas marka kutubta taariikhda qayb ka mid ah ayaa soo qaata oo markaas waxa weeye dhaqankiisii wanaagsanaa iyo akhlaaqdiisii in xataa tuugadii ay ku saamoobeen. qodobka ugu dambeeya ee aan ka hadlayna casharkeenna waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekh jilaani markii uu waxbaranayay wuxuu ku arsaaqay samir iyo dulqaad. maxaa yeelay sheekh jilaani waqtigii xilliga waxbarashada wuxuu la kulmay dhibaato aad iyo aad u fara badan iyo gaajo badan iyo xaalad adag. sababtoo ah waxa weeye asagoo faramaran ayuu wuxuu yimid magaaladii baqdaad ee markaas caasimada islaamka ahayd, magaaladii ugu weyn ahayd. caasimadaas marka waxay ahayd meel lagu yaqaano sicir bararka iyo qaaliga iyo nolol adayga, yacni dad hantiilayaala maadaama ay joogaan wax kasta qaali ayay ahaan. marka nin dhalinyaraahoo iska xerowahoo ardayahoo diintii baranayo waxba haysan xaaladiisa waa qiyaasi kartaa. markaas ayuu sheekh jilaani wuxuu ka sheekeynayaa xaaladda uu la kulmay, dhibaatadii soo wajahday, gaajadii uu la kulmay, inta jeer uu damcay inuu inta ka taga xataa uu iska laabto oo waxa weye maadaama noloshii oo dhan ay ku adkaatay. sheekh jilaani wuxuu sheegayaa inuu si adag u noolaa, intaasoo jeer uu damcay inuu iskaga dhaqaajiyo waxa weeye uu wadankiisii ku laabto maadaama ay duruufi ku qabsatay. laakiin kabacdi hadba niyadiisa uu bedelayo leeyahay ha bedelin go-aankii aad intaas usoo tagtay. marka wuxuu xaaladaasu nooga sheekeynaya sida kutubta culummada taariikhda ay soo qaadayaan. sheekh jilaani wuxuu leeyahay waxaa duruufta isoo qabsatay iyo gaajada aan arkay waxay igu kaliftay xataa geedaha caleentooda iyo waxyaalaha la tuuray, cuntadii dadku ay soo reebeen, waxyaalahaas oo la iska soo reebay inaan naf ka dayo si aan ugu kaalmaysto casharka inaan soo dhegaysto gaajo aana ugu dhiman. marka wuxuu leeyahay sheekhu marna waxaa laga yaaba meelahaas cuntada lagu tuuray qashinka haddaan u raadsan lahaa waxyaalo yaroo dadku iska soo reebeen, waxaa laga yaaba dad kaleo fuqaraah oo baahan in inta iga hormaraan aan ka xishoodo is iraahdo dadkaas ha ku ciriiriyin maaragtay masaakiinta kaga hormaree. marka dhibaato duruuf adaga isoo wajahadu leeyahy. wuxuu sheikhu sheegaya maalin maalmaha ka mid a anigoo xaaladaydu adag tahay, naftu inay ka baxdo ku sigan, ayaan masaajidka soo aaday. masaajidka markii aan soo galay ee masaajidkii aan dhex fadhiyo ayaan waxaa arku yidhi nin dhalinyaro ah oo masaajidka cunto la soo galay. ninkii dhalinyarada ahaa cuntadii ayuu agtayda ku cunayaa. markaas ayaa aniga gaajo xun ayaa ahayda tacbaana ahuu yidhi. mar allaala markuu cad yar afka la aadaba waa halaaqooda ahuu yidhi, hamhamsi yacni gaajada qofka markay ka badato waxa laga markuu cuntada u jeedo inuu halaaqoodo. marka afkan kala taagaa huu leeyahay xaaladayda adkaatay. markaasuu ninkii dhalinyarada ahaa markuu arkay xaaladayda wuxuu yidhi bismillah, yacni carabtu sida dhaqankooda ilaahay hadda bismillah yirahan kaala ila cun wey macnaheedu, kaalay haye bismillah dhaho ila cun. markaas ayaan diiday. markii aan diidu dhaarto yidhi waa inaad ila cuntaa. markaasaan tagay anigoo xishoonaya oo maaragtay raba inaan wax la taataabto si aan dhaartii aan walaalka muuminka ah oo dhaartay aan dhaartiisa u aqbalo. markaas ayaan cuntadii la cunay yidhi anoon weliba ku degdegaynoo ka boobeyn. markaas ayuu u warsadoo yidhi ka waran maa shuqluka, maxaa qabataa?
wa min ayna anta maxaad qabataa huu yidhi xagee ka soo jeedaa markaasaa iruu yidhi mutafaqihun min jiilaan nin waxaa ahay arday ah oo diinta iyo fiqiga barta magaalada jiilaan leera ka soo jeeda waxaana markaasu wuxuu yidhi wa ana min jiilaan aniguna jiilaan magaalada leerahda ayaan ka soo jeedaa markaasu wuxuu yidhi hal tacrifu lii shaaban jiilaaniyan ismuhu cabdulqaadir yucrafu bisibti abi cabdillaahi assawmaciyi azaahid ma taqaanaa inaan dhalinyaro ah ee waxa weeye reer jiilaani aho magaalada jiilaan ka soo jeeda magaciisana cabdulqaadir la yidhaahdo oo caan ku ah sibtu cabdillaahi assawmaciyi zaahid cabdullaahi assawmaciyi waa awowgiis oo hooyadiis loo soo korinayay marka sibtiga waxa wiilka oo gabadhiisu dhashay marka wiil oo loo yaqaano wiilkii oo awowga u ahaa cabdullaahi assawmaciyi zaahid ma taqaanaho cabdulqaadir leeraha markaasuu yidhi waa anigaba wuu yidhi wiilka asheegiis ee jiilaan ka soo jeedo oo cabdullaahi assawmaci u dhalay awowga u yahay markaasuu wuxuu yidhi markii aan inta u sheego isku naxo wejigiisi o dhan isbedelo wiilkii markaasaan wuxuu yidhi markii intaas uu na argagaxay wallaahi yaa akhii laqad wasaltu ilaa baqdaad wa macii baqiyatu nafaqaatin lii baqdaad ayaan imid magaaladan baqdaad anigoo wata qarash yar oo aan wato ayaa imid markaas ayaan ku weydiiyo dadka ku waraystay cidna iima kaa sheegin cid igu soo kaa hagta ma aana helinu yidhi ilaa qarashkaygiiba dhammaaday 3 maalmood ayaan joogu yidhi anigoon afka wax saarin ilaa wax qarashana aan haysan ilaa kis yar oo adigu aa leedahay ma ahane marka maantay maalinka afraada ayaan inta isceli waayay naftu inay iga baxda markaan ka baqday ee baktigu ii xalaaloobay ayaan wuxuu leeyahay lacagtaadii ka soo gatay uu yidhi xogaaga yaroo khubsiga ah iyo cadkan yaroo hilibka aho shiilan aan ka soo iibsado yidhi lacagtaada waxaana igu kallafay uu yidhi baktigaa ii xalaaloobay waa dhimo rabe marka fa inamaa huwa lak wa ana dayfuka al'aan hadda xoolahan adaa iska leh ogow aniguna hadda kabacdi martiya ah adiga awal marti ii ahaa laakiin hadda anigaa marti ku ah waxaagii ayaan ka soo iibsaday markii xaalad adag aan galay markaasaan sheekh cabdulqaadir haddaan ahay waxaan ku yidhi wamaa daaka sidee arrintaas ku dhacday markaasuu wuxuu yidhi ummuka wajahat macii 8 danaaniir hooyadaa ayaa maaragtay 8 diinaar lacag ah diinaarku waa lacag badan xooga kastoo fiican u ahaa 12 dirham weeye ayay ii soo dhiibtay uu yidhi oo tiri wiilkaas ku raadi wallaahi maa khuntuka fiiha ila alyowm ilaa maanta laga soo gaaro kumaana khayaanin wax kalena ma aana haysan dantaa igu kaliftay marka adigaa iska leh ogow marka wuxuu yidhi waan xasiliyey sheekh jiilaan haddaan ahay ninkii waa xasiliyey waa mahadsantaha iruyir wax dhiba male waa kuu xalaal intii soo hartan xataa qaybaan ka sii yiri marka arrintaas wuxuu sheekh jiilaani uga sheekeeyey duruufta soo martay iyo xaaladii uu soo maray marka aimada taariikhdu waxay ka sheekeynayaan in sheekh jiilaani xaalad adag uu wax ku soo bartay iyo nolol adag marka uu wax baranayay waxa weeyana sideeda caadiga qofka hadduu rabo meel inuu gaaro qof kasta ahay akhriya adduunba waxa weeye qasab inuu xaalad adag soo maro sidaa darteeda sheekh imaamu shaafici ayaa nin wuxuu weydiiyey sheekh shaaficiyow ayuhuma afdalu lirajul an yumakan aw yubtala ninka ama qofka yaa u fiican ma waxa u fiican in uu marka horeba ilaahay uu meel gaarsiiyey si degdega hadday cibaadad tahay hadday aqoon tahay haddii base in la imtixaano markaasuu sheekh jiilaani wuxuu yidhi imaamu shaafici wuxuu yidhi laa yumakan xataa yubtala qofka meel maba la gaarsiiyaba oo meel ma gaara ilaa uu imtixaan soo maro maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacala nabiyullaahi nuuxuu imtixaanay nabiyullaahi ibraahiimuu imtixaanay nabiyullaahi muuseu imtixaanay nabiyullaahi ciisuu imtixaanay nabiyullaahi muxamed uu imtixaanay salawaatullahi wasalaamuhu calayhim ambiyadii ilaahay oo dhan ayaa dhib soo wada maray marka haddii ambiyadii ilaahay oo dhan dhib ay soo wada mareen imtixaan la-aan adduunyada waxa weeye laguma joogo falamaa sabaruu makanahum markii ay samreen ayaa ilaahay meel wada gaarsiiyey oo uu doortay marka qofna yuusa u malay inuu yidhi inuu meel iska gaarayo asagoo aan wax dhiba la kulmin marka arrintaas waa asal iyo qaacido weyn oo waxa weeye tusinaysa qofka muuminka ahi inuu ogaado inuusan meel gaarayn haddii uusan dhib soo marin sidaasa sheekh jiilaani dhibaato badan ogala soo kulmay waxbarashadii xilliga uu waxbaranayay
waxaan rabnaa casharkeenna inaan ku soo khatino arrintaas tusaalaheeda asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nebigeenni subana calayhi salaatu wasalaam dhibkii ay diinta ka soo mareen tusaale yar aan ka soo qaadanno sidaas waxaa nooga sheekaynaya asxaabigii la dhihi jiray cutba binu ghaswaan oo ka mid a asxaabtii rasuulka xadiid saxiixu muslim ku yaala wuxuu leeyahay cutba binu ghaswaan walaqad ra'aytunii saabica sabcatin maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waxaan arkay anigoo 7 ka mid ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ciise 7 qof anoo ka mid ah maa lanaa طacaamun ilaa waraqu shajar oo aanan haysan wax cunto ah ilaa geedaha caleentooda ma ahane xataa qarixat ashdaaquna ilaa daamankeennu ayna boogoobeen yacni noloshaas adag ayaan soo marnay u fiirso waa sida sheekh jilaani uu leeyahay caleenta iyo waxa weeye geedaha caleentooda iyo waxyaalaha cuntada la iska reeba iyo meelahaasaa cuni jira marka dadkii wanaagsanay o dhan dhib ayay soo mareen faltaqadtu burdatan fashaqaqtuhaa baynii wa bayna sacd bni malik wuxuu leeyahay cutba binu ghaswaan go ayaan inta soo qaatay ayaan aniga iyo sacad binu maalik u kala jeexay markaasaa cad yar anigu xirtou leeyahay cad yarna oo barkeedna isagu xirtay maxaa ka dambeeyey qofku mar hadduu dhibtoodo dhibkaas barwaaqa ka dambaysa famaa asbaxa alyowma mina axadu ilaa asbaxa amiiran calaa misrin min alamsaar qof kasta oo annaga inteeni naga mid ah ya 7deenna qof kastoo maanta naga mid a nebigu marka laga ra alayh salatu waslam wuxu le inteena noolba nin kastoo annaga naga mid a maantay magaalo ka yahay gobernatore magaalo waaba madax dowladeed wey gobernatore wey wainii acuudu billaahi an akuuna fii nafsii cadiima wacinda allahi sagiira waxaana ilaahay ka magan gelayaa in aan anigu isla weynaado ilahay agtiisana qof yar oo aan waxba ahayn ku noqdo oo macnaha xilkaas iyo waxyaalahaas iyo nicmadaas iyo barwaaqadaas aan haysano inaanan ku kadsoomin aan ilaahay weydiisanayna ilahay agtiisa aan dad waaweyn ka noqono marka qofku haddii uu rabo inuu meel sare gaaro aakhire iyo adduunba waa inuu dhibtooda dhibka waa inuu dhadhamiya adoon dhib dhadhamin haddaad rabtid dhakhtar inaad noqotid adoon wax dhiba arkin haddaad rabtid injineer inaad noqotid adoon wax dhiba arkin haddaad rabtid macalin jaamacadeed inaad noqotid doctor inaad noqotid adoon wax dhiba arkin haddaad rabtid aqoon-yahan inaad noqotid adoon wax dhiba arkin haddaad rabtid inaad meel gaartid adoon wax dhiba arkin haddaad rabtid hanti inaad yeelatid adoon wax dhiba arkin haddaad rabtid caruur badan inaad heshid adoon wax dhiba arkin haddaad rabtid inaad sheikh diinta dhan iftooda noqotid waa liday ka midta taas waa dhib inaad soo martid markaasaa waxaa hadalkii aimada ka mid ahaa tamanayta an tumsiya faqiihan munaadira bigayri canaa'in waljunuunu funuun walaysa iktisaabu lmaali duuna mashaqa talaqaytahaa falcilmu kayfa yakuun yacni waxaad jeclaatay inaad noqotid qof faqiiha oo masaa-isha dhan ka dooda masaa-isha kala dhigdhiga aqoon u leh bigayri canaa'in wax dhibana adoon soo marin faljunuunu funuun yacni waalidu waa noocyo qayba wey waalidu waa qayb ka mida waxa ku haystaa hantidaba dhib la-aan laguma shaqaystee sidee aad cilmiga dhib la-aan ugu raadinaysaa maanta kulligeen dad badan waxaa naga mid a inta xoogaa yar dhowr xadiis soo dhegaystaan shiiqay kasoo dhegaystaan facebooka soo dhigo haddana maalinka dambe ifta bilaaba shiikh hebel in la yiraahdo jecel khatar waa taas waa waalida qayb ka mida qofkii raba inuu diinta islaamka ka hadlo waxa weeye ha barto si kastaba qofku markii uu dadaalo soo gubto wax kastaba akhriya adduunba ayuu meel sare gaara markaasa waxaa la yidhaha man lam yakun lahu bidaayatun muxriqa lam takun lahu nihaayatun mushriqa qofkii aan lahayn bilow uu soo gubtay aakhiri adduun yani dadaal uu ku soo maray oo soo dhidida aan lahayn dhammaad ifaya ma gaaro oo meel dambe ku faraxsan yahay ma gaaro marka inaan ku dadaalno weeye in aan haddaan rabno aakhiriya adduunba inaan meel gaarno aan dadaalno ilaahayna tala saarano in sha allahu tacaala casharkan intaasa kusoo koobaynaa wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu